warwareer isku arki doontaa madaxa ku warwareerayo markaad isticmaasho kadib waxaad isku arki doontaa mantag laba dareeme mantaga dareeme wuxuu kaloo leeyahay beerka ku xanuunayo beer xanuun uu leeyahay beerka ku xanuunayo beerka ku ololayo maadaama oo daawooyin tiro badan uu ka samaysan yahay daawooyinkaas la isku dardaray waxay sababayaan hadduu jirka bini'aadamka relief u sameeyo kadib wuxuu galaa beerka u tagaa wixii jirka soo gala qashin saar oo la aruurinaa beerka la geenaa beerka lagu haynaa marka beerka maxaa waay qashin saar waa detoxification ahna loo isticmaalaa marka maadaama wixii la soo aruuriyay oo beerka la isku keenay wuxuu ku sababaa marka detoxification beerka oo dhibaato gaarsiinaa beerka maadaama la geeyey oo qashin saar ahaan loo geeyey beerka oo dhibaato u sababaa assalaamu calaykum kusoo dhawaada xalaqooyinka uga hadlayna daawooyinka maanta waxaan ka hadlaynaa daawo cusub oo la magac baxday antibain kaniiniga magaalada muqdisho ama gaar ahaan soomaalida aad ay u isticmaalaan in loo yaqaano antibain plus arabna maanta maadaama dadweyne naga codsay inaan kasoo hadalna ka hadalno marka qodobka ugu horeeya waxaa ka hadlaynaa waa maxay antibain kaniiniga antibain waa taqaaniin antibainka waxaa loo yaqaanaa sheekhul kulli u yaqaaneen soomaalida u baxsadeen wuxuu daawo u yahay oo relief u yahay dhammaan jirka bini'aadamka oo daaweynaa wuxuu daaweynaa madaxuu daaweynaa wuxuu daaweynaa lafahuu daaweynaa wuxuu daaweynaa korka dhan uu daaweynaa wuxuu ka kooban yahay maadooyin aad u adag oo ka kooban yahay strong ah marka sidaas darteeda soomaalida waxay dhahaan sheekhul kulli waay qofka hadduu isticmaalo aad u bogsoonaa weliba especially xilli oo waxaa jiro oo virus la dhahay tobacco virus soo ifbaxo xilliyada tobacco virus cimilada isbedelayaan oo kale dadka korka jajab iyo daal ay dareemayaan viruskaasa marka waxaa sababa qofka inuu korkiisa jajabo oo dareemo ama daal inuu dareemo xilligaasoo kale hadduu isticmaalo qofka relief oo dareema kor jajab ma dareemayo daalna ma dareemayo marka waxyaabahaas aadka loogu isticmaalaa marka qodobka labaad muxuu ka samaysan yahay antibain wuxuu ka samaysan yahay maadooyin aad u tiro badan oo ka samaysan yahay waxaa kamid ah paracetamol kamid ah sodium wuxuu ka samaysan yahay paracetamol ka samaysan yahay wuxuu ka samaysan yahay diclofenac sodium ka samaysan yahay wuxuu ka samaysan yahay chloroformin malate maada la ka samaysan yahay wuxuu kaloo ka samaysan yahay maada la magnesium triacylate ka samaysan yahay marka maadooyinkan oo tirada badan oo ka kooban yahay wax loo yaqaan antibainka waxaa kaloo lagu midabeeyaa maada loo yaqaano tetrazine lagu midabeeyaa kalar ahaana uu kalareyna markii waxaan la isku daro kalar kale yeela doonaan si kalarka loogu bedelo waxaa loogu daraa marka maadada loo yaqaano tetrazinka marka wuxuu sameynaya inuu midabka ka bedelo si midabka cadaanka loo sameeyo haddii kale kaniini kafee afkaaga ma geli karta waa dareemi kartaa marka maadooyinkaas laisku daro oo combalkaskoo ka imaado marka qodobka saddexaad maxaa loo isticmaalaa antibainka inta badan waxaa loo isticmaalaa markoo lafahana xanuuno markii madax xanuun oo joogto aan qabno kor xanuun markaan qabno oo guud oo jirkeena iyo jirka markoo oo nololayo yani kuleel markaa dareemaysid oo kale haddaad isticmaashid relief waay korkaaga dhan haddaad isticmaashid oo relief guud waay xilliga waxaa la isticmaalaa oo kale qofka malaria ee heesoo kale oo aad malaria qandhada ee zaa'id u heesoo kale haddoo isticmaal relief oo dareemaa waxaa kale la isticmaalaa xilliga oo qofkan tiif oo dareemayo oo mantagayo madax dhan oo wareera haddoo isticmaalo relief oo dareemaa waa daawo strong ee waay marka side effectiga qodobka afraad daawadan mar alla markaad isticmaashid kadib side effectiga yeela doontaa side effectiga leedahay waxaa kamid ah madax warwareer isku arki doontaa madaxa ku warwareerayo markaad isticmaasho kadib waxaad isku arki doontaa mantag laba dareeme mantaga dareeme wuxuu kaloo leeyahay beerka ku xanuunayo beer xanuun uu leeyahay beerka ku xanuunayo beerka ku ololayo maadaama oo daawooyin tiro badan uu ka samaysan yahay daawooyinkaas la isku dardaray waxay sababayaan hadduu jirka bini'aadamka relief u sameeyo kadib wuxuu galaa beerka u tagaa wixii jirka soo gala qashin saar oo la aruurinaa beerka la geenaa beerka lagu haynaa marka beerka maxaa waay qashin saar waa detoxification ahna loo isticmaalaa marka maadaama wixii la soo aruuriyay oo beerka la isku keenay wuxuu ku sababaa marka detoxification beerka oo dhibaato gaarsiinaa beerka maadaama la geeyey oo qashin saar ahaan loo geeyey beerka oo dhibaato u sababaa wuxuu kaloo sababaa wax loo yaqaano appetite lost wuxuu luminaa appetite-keena caadiga luminaa intaas wax waaye side effect guud ahaan waaye marka qodobka shanaad digniin marka complications oo yeela doonaa
marka digniin haddaad isticmaashid kaniiniga antibed plus loo yaqaan waxaa la kulmi doontaa beerka kaa bararo maadaama beerka uu fadhiisanayo beerkaa soo bararo sameynaa labada keliyihii shaqooyinkooda failgaroowayo yani keliyaha markuu ka bato oo aad u isticmaashay keliyaha marka waxaa dhacaya inuu failgaroobo oo shaqooyinkii ay wadeen ay gabaan dan keliyihii marka wuu barar doonaa labada keli waxay igan bilaabayaan shaqooyinka day gabaan inuu isbedel ku dhaco ay soo bararaan wuxuu kaloo sababaa stomach ulcer waxaa ku dhex jira maada glyphenic sodium ku jiro paracetamol ku jiro marka kiimikooyinkaas ku jiro waxay noo keenayaan stomach ulcer ay noo keenayaan xuubka caloosha xoqayaan marka iska badisay xuubka caloosha xuubka caloosha markuu xoqo dhibaatadaas marka waxay saameyn doontaa xuubkaas maadaama oo xoqa ulcer inuu dhaco raashin kulul daa isticmaasha waxaa dareemay labalab inuu ku hayo waa mantaga isla markii xuubkaasaa dilaacay ulcer qaaday ulcerkaasna wuxuu na gaarsiinaa inuu serious oo complication uu na gaarsiiyo marka stomach ulcerkaas oo sababa wuxuu kaloo sababa heart failure sababa wadnihii inuu qofka xanuuno maadaama daawo strong oo isticmaaleyno heart failure toos ku keena wadnaha ku xanuunaya gaar ahaan dadka 60 jirada ay isticmaalaan wadna xanuuna ku dhacaya wadnihi ku kacay haddana blood pressure-ka dhiigga way kubcinayaan sare u qaaday waxay kaloo sababtaa blood clotting dhiig inay xinjirta ku badaso haddii dhiig xinjirta ku badaso circulationka dhiigga yaraanayo haddoo yaraado dhiigga haddoo clotting ku barto qofka inta badan oo xaaladaas ku dhaco koomo galaa waxay kaloo daawadan sababtaa pregnancy-ga dadka uurka loo kala isticmaalaan bleeding ka imaado gabar oo uurkeeda 3 bilood maraysa hadday isticmaasho dhiiga ka imaanayo ilmihii marka waxay ku jiraan qalqal ay galayaan isbitaale oo carre waxay dhigay daawo isticmaal dhiiga iga imaado maxaa jiro dhaqaatirada marka waa la daaweynaa waa la daryeelaa ilmaha inay badbaadaan waa aad u yartahay ilmo badan oo waxaa jiro daawooyinka noocan oo complex la isku daray ilmo badan oo ku soo halaabaa jiro laakiin ilmaha inay ka badbaadaan suurtagal waa qofka hadduu hal xab ama laba xab isticmaal oosan iska badanin waxaa laga yaabaa inuu ka badbaado laakiin haddii oo dhowr xab isticmaalo oo maalinkii gabadha uurka qaad 3 bilood ay isticmaalayso kale waxa uu imaanaya bleedna uu imaanaya inta badan gabdhaha markii uurka bilowga ay yihiin walaac iyo waxyaabo badan complication badan ay la kulmaan cabashooyin badan oo iyaga ay dareemayaan jiro ee rag aysan fahmi karin cabashooyinkaas maadaama gabdhaha ay dareemayaan waxay ku qasban yihiin marka waxyaabo xanuun baabi'i inay isticmaalaan marka xanuun baabi'i dhan gabar markay uur leedahay ilaa 5 bil ay ka gaarayso looguma talgalin markay bisha koowaad uurka laga helo ilaa 5 bil ay ka gaarayso wax xanuun baabi'i isticmaali karto paracetamol u dhow hadday isticmaasho paracetamol asna side effect uu leeyahay 5 bilood markay gaartaa gabadha waxaa loogu talagalay maadaama uur ay leedahay inay isticmaasho daawooyinka sida paracetamol iyo wixii la midka ah intay 5 bil ka gaarayso wax daawo isticmaalka 5 bil markay gaarto amniotic fluid la sameeyna jirkeeda wuxuu u diyaar gareysmaa inuu protection cunigaas sameeyo cuniga amniotic fluid la diyaarina amniotic fluid kan wuxuu cuniga ila ilaaliyaa waxyaabaha oo banaanka imaanaya cunigu dhacayo oo jirka oo soo gaaraya cunigaas uu ka ilaalina protection oo sameeyo ilaahay wuxuu u diyaariyay caloosha marka ku jirtana asaa ku ilaaliyo banaanka da soo baxdina asaa ku ilaalinayo marka dumarka uur kale uu daran yahay wuxuu kaloo sababa kaniinigan haddii aad loo badsado cabro keena naqaska dadku xiraa respirationka oo dhibaa dadka qaar naqaska ku xiraa naqaska hadduu ku xiran dhibaato badan ay imaanayso waxaa kaloo sababa anemia waa taqaanin dhiig yari oo keena dhiig yari hadduu u keeno qofkan wuxuu u baahnaanaa inuu dhiig oo wax kobcinaya raadiyo hadduu dhiigga qofka biniaadamkana 5 ka hoos maro xaalad emergency oo galaa in faleebo u baahdo faleebo la duro jir dhiiggiis la soo kobciyo oo naqanay marka xaaladaasna inta gaartid waxa waaye xaalad khatar ah oo emergency waay wuxuu kaloo sababa maadaama complicationada tirada badan uu leeyahay dadka qaar wuxuu geliyaa coma uu geliyaa oo wuxuu sababa stroke-na waa qayb ka mid ah koomada waay qofka hadduu ku dhaco waxaa dhiig ku furmaa la dhahaa maskaxda inay dhiig ku furmantan waxaa sahlaya blood clotting oo kuu sababaya dhiigga xinjir ku badinaya dhiigga hadduu mar xinjir ku badato dhiig markii la wareejiyo maskaxda ay tagto xinjirta maskaxda ay fadhiisanay ma dhaqaaqayso waxaa loo baahnaa qofka isla marka uu dhaca dhiig bini'aadamkana 3 saac waa la wareejiyaa circulator oo ilaahay u talgalay ee sameeysa maskaxda ay tagay 3 saac waa wareegsanay 3 saac markay maskaxda tagaysa ay wareegsanayso circulation ay sameynayso dii la waayo qofkan waxa ku dhacay complications imaanay waxa laga yaabaa inuu dhulka dhaco isbitaal la carra faleebo la dur la dhaho qofkan problemkan ahay daawooyin hala siiyo
marka cashirkeena intaas kusoo gabagabeynayna waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Academy for Science and Technology waxaad ka heli kartaa online courses oo kala ah sida medical laboratory technology, pharmacology, luqadda Englishka oo 3 qaybood ah, primary, intermediate iyo advanced. waxaa kaloo ka heli doontaa research methodology. fadlan hadda la soo xiriir nambarka WhatsApp-ka